waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay guddoomiyaha galmudug baarlamaankiisa guddoomiye gacal oo martiqaadkii aan u fidiyey aqbalay maanta noogu soo booqday mawlac macalin nuur isaga iyo wafdiga la socdo xildhibaanada ah waxaan leeyahay ilaahay ajir ha idinka siiyo waxaan leenahay hambalyo xilka lagu egmado lagu dhiibay adiga iyo xildhibaanada galmudug waa dhisneed muddo dhisneed khayr badan aan ka rajaynaynay maalinba meel ay soo maraysay maanta waxaan rabnaa inaan dhisano qurxisano oo maaragta cadowgana laga xoreeyo insha allahu tacaala marka waxaan ku leenahay tawfiiqda allah ku waafajiyo guddoomiye soo dhawaaw ilaahay ayaa mahadle sidoo kalena keena mawlaca macalin nuur oo khaliif cabdiqaadir macalin nuur ow mas-uul ka yahay oo nagu martiqaaday martiqaankaas iyo wicitaankaas de ilaaha ku mahadle mahadda labaadna khaliifka iska leh anukoo ah waxaa ahay galmudug baarlamaankiisii oo guddoomiyaha baarlamaanka oo hor kacaayo khaliifkana soo dhoweeyey waxaan u mahad celinaynaa mu'asasada macalin nuur iyo khaliif cabdulqaadir macalin nuur maantay nagu soo dhoweeyey xaruntan barakaysan mawlaca macalin nuur ah xarun cilmi xarun dhaqan xarun qur'aan xarun bulsho xarun nabadeed dhinac kastaba bulshada taariikhda iyo tan hadda joogtaba ka qaadatay kaalin weyn waxaa sharaf noo ah in maantay aan barakada iyo nuurka xaruntan soo ziyaaranno waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo martiqaadka naloo fidiye maantay galmudug la yaab ma laho khaliif cabdulqaadir galmudug hadday noqon lahayd dhismaheedii iyo qabanqaabadeedii iyo dib u heshiisiinteedii iyo maamulkeedii iyo waxbariddeedii iyo ka qaybgalkeedii dhinac kastaba hormuud ayuu ka ahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa kaalintii mugga laheed ee uu ka qaatay galmudugtii hore iyo galmudugta cusubba degmooyin astaan u ahay cilmiga iyo qur'aanka iyo xalaqaadka ayaa naga maqan degmooyin galmudug iyo soomaaliyaba muhiim u ah ayaa weli ka maqan gacantayna marka mar kale khaliifka waxaan rabnaa inuu arrintaas kaalin ka geysto waan hubaa in laamo badanoo hadda uu ka furi lahay ama horuuga furnaayba inay ilaa hadda muxuu ahay xayiran yihiin ama ay ku jiraan gacan aan sidii loogu talagalay ama sidii ay ahaa jirta ama sida Soomaaliya rabto aan uga shaqaynayn marka codsigaasna waa ku ag dhiganaynaaho waan rajaynaynaa arrintaas inaad nagu horkacdid ducada iyo quraankana lagu akhriyo inuu ilaahay dadkaas waa dhiban yihiin waana dulman yihiin dulmiga ka dulqaado waxaan rajaynaynaa inaad galmudugta cusub insha allahu dhinac kastaba nala diyaarisaan